halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com. duur wanaagsan dhegaystayaal sidaad u dhantihiinba waa labadii duhurnimo oo gow ah Afrikada Bari. qodobada barnaamijkan idinkugu hayana waxaa ka mid ah Talyaaniga oo dagaal cusub ku bilaabay soo galootiga Mediterranean-ka ka soo gudbaya goodin iyo hanjabaad ayuuna raaciyey koobkii adduunka oo meel xasaasi ah maraya. Kismaayo waxaa lagu toogtay rag horay dilal u geystay waxaa ka mid ah nin xaaskiisii dilay ciyaaryahan caan ah oo waagiisii hore musqulaha dhaqi jiray. weligaa ma maqashay kalluun Kismaayo laga soo dabay oo Kenya loo iib keeno. Mombasa markaan geynay mabal aaminsanaysaas kan annaga aan soo diyaarinay waa kii ugu horeeyay kii badaha doonyaha kale ay qaadeen oo taagan iyo kii aan diyaarinay nadiifka ah lagu qancay isla markiiba la qaatay. barnaamijkeennii hiigsiga nolosha ee isbuuclaha ahaa xasba qodax lagu hubaa xareed weeyaan samuhu taariikhduna waa xasuus shaqana xirfad baa hagto xigmadi waa erey gobeed xuluushuna maaha daaq xaaraan inaad biirsatana xabkaysaa dhaanta oo adduunyadu waa xajiin. barnaamijka waxaa soo saartay Firdawsa Maxamed Cilmi. balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Axmed Mursal Xuseen. mahadsanid Catoosh. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey laamaha ammaanka dalka Venezuela in ay geystaan dilal bareer ah ayagoo ku andacoonaya in ay ka hortegayaan falal dambiyeedyo. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dilalkan ay u muuqdaan kuwa xukuumadda Venezuela ay marmarsiyo uga dhiganayso falal dambiyeedyada oo yaraaday awgood. waxay intaas ku dartay in mas-uuliyiinta dalkaas aan lagula xisaabtamin arrintaas. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa ku hanjabay in ay la wareegayaan doontii muhaajiriinta siday ee laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka. Mr. Salvini ayaa sheegay in doonida sidata calanka Holland ee lagu magacaabo Lifeline ay habboon tahay in lala wareego shaqaalaha saaran xabsiga la dhigo. madaxweynaha golaha midowda Yurub Donald Tusk ayaa wada hadal la xiriira muhaajiriinta ku qabanaya magaalooyinka Vienna iyo Budapest ka hor inta aanu qabsoobin shir madaxeedka aan horay loo qorshayn ee dhacaya toddobaadkan horraantiisa. waxa uu isku dayayaa in arrintan mowqif midaysan laga istaago iyadoo laga yaabo in midowda Yurub ay ku kala aragti duwanaadaan marka uu dhaco shir madaxeedka ay isugu imaanayaan dhammaan dalalka midowda Yurub toddobaadka dambe. ugu dambayntiina dalka Indonesia nin wadaad ah ayaa lagu xukumay dil toogasho sabab la xiriirta in uu maleegay weerarkii ugu horreeyey ee ururka isku magacaabo dowladda islaamiga ah uu ku qaado dalkaas. garsooraha maxkamadda Ahmed Jeyni ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda. aman cabdiraxmaan oo la baxay abu sulaymaan ayaa lagu helay dacwad argagixisanimo. sidaas darteed aman waxaa lagu xukumayaa dil. xukunka kadib aman cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu doonayo in degdeg dilka loogu fuliyo. warkiina waa naga intaas. aan dib idinkugu celiya Cabdirasaaq Catoosh iyo warka. aad baad u mahadsantahay Axmed. hagaag wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini ayaa ku goodiyey inuu la wareegayo doomaha wax badbaadiya ee badda Mediterranean-ka. markabkii u dambeeyey ayuu Mr. Salvini wuxuu uu sheegay in dadkii tahriibayaasha uu keenay ay tahay in lala wareegayo shaqaalahana lagu xirayo markabkaasi isaga ah. Firdawsa Maxamed Cilmi ayaa warkaasi soo tarjuntay inoona haysa. sida ay xaqiijinayso laanta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ilaa 220 qof oo doonayay in ay badda uga sii tallaabaan qaaradda Yurub ayaa meel ka baxsan xeebaha waddanka Liibiya ku qarraqmay oo ku go'doonsan. laantuna waxay ku baaqaysaa tallaabo degdeg in laga qaado sidii loo xoojin lahaa dadaalada samata bixinta. dhinaca kale wasiirka gaadiidka ee dowladda Talyaaniga Danilo Torinelli ayaa waxa uu sheegay in ilaalada xeebuhu ay qabanayaan 2 markab oo kuwa tahriibka soo badbaadiye ah oo samafalho laga leeyahay Jarmalka oo iminka ku jira badda Mediterranean-ka. waxa wasiirku ku eedeeyay maraakiibtaasi in ay ka boodeen qaanuunka caalamka u dhigan. maraakiibta midkood oo la yidhahdo Lifeline waxa uu siday 226 qof oo tahriib ah. labada markabna waxa ay sitaan oo ka babanaya calanka Dajka. hase ahaatee dowladda Netherland waxay sheegtay inaysan u diiwaan gashanayn. Axel Steiner
waa aasaasihii lifeline waxa uu beeniyey in aysan si sharciya u shaqayn wuxuu difaacay dadka tahriibka ah ee ay badbaadiyeen in loo baahan yahay in la geeyo dekad laga dejiyo xaaladan oo kale ma sugi kartid haddii aad doonaysid inaad wax samata bixiso waa inaad dadka ka hor istaagtaa inay ku dhintaan badda marka ay ku qarraqmayaan waa inaad go'aan gaartaa ma sugi kartid ilaa iyo in ay cidi dekad ku siiso waa inaad si dhaqso leh tallaabo u qaadaa talyaaniga haddana waxaa hadlay wasiirkooda arrimaha gudaha Matteo Salvini waxa uu ku hanjabay inay la wareegi doonaan maraakiibtaasi dadka tahriibka ka soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka fariin Twitterka uu ku diray Salvini waxa uu sheegay inuu weydiistay dowladda Malta inay u ogolaato in xeebteeda laga dejiyo wax uu ugu yeeray shixnad tahriiba oo dhan ilaa 239 qof waxa uu ku eedeeyay hay'adaha samafalka ee Jarmalka laga leeyahay Lifeline in ay ka howlgasho xeebaha waddanka Liibiya iyadoo jibinaysa xeerarka caalamka ha yeeshee war qoraal oo ururku uu soo sheegay waxa uu ku sheegay inay samata bixiyeen dadka tahriibka ah si waafaqsan xeerarka caalamka u dhigan waxaana ururku uu ku baaqay in dadka la soo badbaadiyay si nabada loo geeyo dekad laga dejiyo isla bishan horraanteeda ayay ahayd markii Salvini uu diiday doon siday qaxooti badda laga soo samata bixiyey inay ku soo xirato dekadaha Talyaaniga kadib doontii iyo dadkii saarnaaba waxa qaatay oo magan geliyay dowladda Spain ururka Lifeline iminka waxa uu sheegayaa inuu ka baqayo in tahriibayaashan u dambeeyay ee badda Mediterranean-ka laga soo samata bixiyey ay ku dambayn doonaan sidii kuwii hore ee Talyaanigu u diiday mahadsanid cabdinuur dhegaystayaal ka raalli ahaada warbixintaas cabdinuur baa soo jeedinayay carabkaa iga boobay oo maysan ahayn firdowso waa hagaag facebookga u galo saxardiid xaashi ardaale waa saaxiib si weyn ugu taxan bogganaga booramu jooga waan ku salaamay saxardiidow wuxuu yidhi waa arrin laga xumaado tallaabadaasi uu talyaaniga kula dagaalamayo soo galootiga mediterranean-ka waayo muhaajiriintu waa masaakiin ka soo hayaamay holac iyo halaag ka jira waddamadooda waa hagaag warbixin cusub oo qaramada midoobay xafiiskeeda xuquuqul insaanka ka soo baxday ayaa lagu sheegay in dalka venezuela ay ka dhaceen dilal iyadoo loo marayo la dagaalanka dembiyada marmarsiyana looga dhiganayo in dembiye lala dagaalamayo kuwa dilalkaasi geystana waxaa lagu yidhi warbixintan lalama xisaabtamo warbixinta oo hadda un la daabacay ayaa lagu sheegay in ciidanka dowladda venezuela ay qayb weyn ku leeyihiin dilalkan baarayaal ka socda qaramada midoobay ayaa loo diiday inay galaan dalkaasi imagon folkas ayaa warkan ka soo dirtay waatan firdowsoo soo jeedisa warbixintan qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay laamaha ammaanka ee waddanka venezuela in ay u muuqdaan kuwo la dagaalamaya falal dembiyeedyo iyaga oo galaya guryaha kuna laynaya dhallinyarada ku jirto qaramada midoobay ayaa sheegaysa in falalka dilalka ah ay u muuqdaan mid ay ku doonayso xukuumadda venezuela in ay ku muujiso hoos u dhaca faldembiyeedka waxayna tilmaamaysaa in 100 dhallinyaro ah la laayay kadib dilalka ayaa waxaa jiro caddaymo muujinaya in laamaha ammaanka ay meel kasta xiraan si dilalku ay u muuqdaan kuwo rasaas la isweydaarsaday kiisaskan iyo dibadbaxayaal la laayay sanadkii lasoo dhaafay ayaanan midna waxba laga weydiinin laamaha ammaanka arrintan ayaana sababtay in ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka uu sheego in sharci uusan ka shaqaynaynin dalkaasi warbixinta ayaa sidoo kale lagu xusay in sicir barar cunno yari iyo dawo la'aanba ay ka jirto dalkaasi venezuela kala bar dadka dalkaasi ayaana haatan la soo sheegayaa in ay ku nool yihiin saboolnimo aad baad u mahadsantahay firdowse maxamed cilmi b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag haatanna war kooban sida uu b b c da u xaqiijiyey wasiirka garsoorka iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa kismaayo saaka dil toogasho ah lagu fuliyey 3 nin oo horey loo sheegay inay dad u dileen ragga la toogtay waxaa ka mid ah cabdulaahi asad oo horey xaaskiisa u dilay maxkamadda jubbaland ayaa ninkan isbuuc ka hor xukun dil ah ku riday toogashada ayaa maanta waxay ka dhacday meel fagaaro ah isla qodobkaasi waxaa fikirkiisa ka soo dhiibtay bashka cadde waxa uu joogaa muqdisho wuxuu yidhi dadka horey u dilay dad kale ee lagu toogta kismaayo waa arrin aad loo soo dhoweeyo waxayna ila tahay in arrinkaasi ay ka hortegi doonto dad kale inay ku kacaan falka noocaasi ah cabdixakiin xasan isna wuxuu joogaa jigjiga wuxuu yidhi ragga dil ka geystay in la toogto waan qabaa waayo dhibaatooyinka noocaasi ayaa xididi doona anigana si adag ayaan u taageersanahay ayuu yidhi wahagaag intaanan kismaayo ka bixin kalluumaysatada magaalada kismaayo ayaa markii ugu horraysay bilaabay inay dhoofiyaan kalluunka ay ka soo jillaabtaan xeebaha magaalada kadib markii koox ganacsato ah oo gacan ka helaya hay-ada samafal ah ay ka hirgeliyeen meel aan sida uga fogeen xeebta kawaan lagu qalo kalluunka ka hor intaanan dibadda loo qaadin
bishii maarso ee sanadkan ayay kalluunkii ugu horreeyey u iibgeeyeen magaalada mombasa ee waddanka kenya wariyahayaga ibraahim maxamed aadan ayaa dhowaan safar shaqo ku tegey kismaayo warbixintan ayuu amuurtaasi nooga soo diray kalluumaysatada reer Kismaayo waxay saacado badan ku jiraan badda si ay kalluun badan u soo jilaabtaan marka ay yimaadaan xeebta waxay bilaabaan inay doonta ka dejiyaan kalluunka si ay ugu wareejiyaan warshad yar oo laga hirgeliyay magaalada dabadeedna loo dhoofiyo noocyada kalluunka ay soo jilaabtaan waxaa ka mid ah kalluunka qaaliga ah ee loo yaqaano kingfish ama taraaqad iyo nooca kale ee tuunaha kalluumaysatada ayaa ku faraxsan inay helaan qaboojiyayaal iyo warshad kalluunkooda lagu hayo waqti badan si fursad loogu helo in meelo fogfog loo iibgeeyo مصطفى عبد الله محمد waxa uu kamid yahay kalluumaysatada magaalada Kismaayo waxa uu ka sheekeynayaa dhibka ay qabeen koor inta aanay helin warshadan yar ee lagu diyaariyo kalluunka dabadeedna la dhoofiyo kalluunka awal hore badan ka soo saari jiray waxaan keeni jiray suuqa markaan keeno marar badan oo kalluunku markuu badda ay saay u furanto kale waxa dhici jirtay inaan meelan ku kaydsano oo dhigno oo kalluunka haysa inaan weyno waqtiyadii hore kalluun badan ayaa ka halaabi jiray sababo la xiriira inaanay heli karin goobo ay ku kaydiyaan halkan waa warshad yar oo lagu diyaariyo kalluunka koor inta aan la dhoofin sanadkii hore ayaa la hirgeliyay laakiin kalluunkii ugu horreeyay ee halkan lagu habeeyay waxaa Mombasa loo dhoofiyay bishii 3 ee sanadkan heerka qabowga ee kalluunka lagu kaydiyo waa -40 ganacsatada warshadan yar ayaa sheegaysa in si weyn looga soo dhaweeyay suuqyada Mombasa kalluunka ay u iibgeeyeen sida uu Cabdiraxmaan Farax Guuleed uu sheegayo kafishin waa meel kalluunka lagu diyaariyo oo aad nadaafadeeda iyo processingkeeda iyo qaabka kalluunka loo habaynayo dad professional ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo isbiirsaday ah waana ku guuleysanay insha Allah taala haddana rijo waxaan ka qabnaa in sidii la rabay aan u gaarno Mombasa markaan geynay mabal aaminsanaysaas ما صار حد يارك كرنا أما أوه جاتش كرنا ما بالأمن سنين بقى كان أنا قاعد صاد يارنا وكي أوري وكي بدها الدنيا كلا قاعدين أتاجن يكي عند يارنا نظيف كهاللوق عن أي سلامات كيف لقعت لا ما علم جدوه كل ما ذاك اللون كي أنت صوتناها warshada waxaa sidoo kale lagu habeeyaa kalluunka la jarjaray ee loo diyaariyay in la dubo ama la kariyo taas oo loo iibgeeyo suuqyada magaalooyinka kale ee Soomaaliya finger kanoo kale waxaan ka jirnaa 10 nooc oo kalluun ah haddii sidan oo kale la kordhiyo warshadaha yaryar ee lagu kaydiyo kalluunka waxaa la rumaysan yahay in ka badan inta tan ee hadda la dhoofiyey in loo iibgeyn lahaa suuqyada gobolka taasoo dhaqaalaha wax badan ku soo kordhin lahayd ibraahim maxamed aadan BBC Kismaayo ibraahim aad buu u mahadsan yahay waa hagaag ciyaarihii ayaa soo socda balse haatan sheeko xiise leh ka waran haddii lagu sheegay ciyaaryahan caan ah oo hadda caan ah oo weliba maalqabeen ah balse waagiisii hore musqulaha dhaqi jiray waa sheeko cajiib ah cabdinaasir saxan saxa inoo haya cabdiyow ninkan waa kuma horta ninkan wuxuu ka tirsan yahay kooxda xulka qaranka ingiriiska Raheem Sterling ayaa la yiraahdaa waxaana uu ahaa dad qoyskooda ka soo jeeda dalka Jamaica asalkiisa hore hooyadii ayaa keentay isagoo 5 jir la keenay aabihiisna xabad buu ku dhintay ama qori buu ku dhintay noloshana meel hoos ka soo bilaabay oo xitaa ilaa heer musqulo ay dhaqaan reerkooda oo guryo councilka ama dawladda hoose ay leeyihiin deganayeen hadda boqorta ceerta waa tuuray gaajo dambe iyo isaga way ismac salaameeyeen saxaafadda ingiriiska ayaa markasta waxay hadal haysaa qaabka noloshiisa tamashlaynta lacagaha uu isticmaalo reerkiisa wax u gaday hooyadii xitaa guri weyn buu u gaday markaa wuxuu leeyahay annaga oo noloshaasi soo marnay maxaa hadana loogu diidan yahay inaan raaxaysano weliba aan ku raaciyo Raheem Sterling kooxda Manchester City oo koobka hadda qaadu u dheelaayo isbuucina waxa la qaataa intaasoo kun oo pound oo aan caadi ahayn lacagta uu qaatay iyo waxyaabaha uu isticmaalo wuxuu leeyahay kama walwala aad baad u mahadsan tahay niyow mikrofoonkan iyo wariinimada ma ka tagnaayo kubaddi ma galnaa si aan tujaar u noqono dhibka jirasa wuxuu yahay aniga kubadda xitaa ma daawado inaan ciyaar iska dhaaf ma gebiba aniga yaraanteedii haddaad ogaan lahayd weliba difaacan ka dheeli jiray isla ciyaarahaasi ayaan ku jirnaaya xalay waxaa dhacay ciyaar cajiib ah argentiin ardaatiqaha laga dhigay croatia 3-0 sidii sharoobada u cabsiisay maanta ciyaaro kalaa jira nigeria iyo iceland is arkaya brazil iyo costa ricana way isqaabilayaan serbia iyo switzerlandna way isu ballansan yihiin koobkii adduunkana meel xasaasi ayuu maraya fadlan fikirkaaga ku soo dhiibo adigana kooxda taageerta noo soo sheeg koobkaasi adduunkana ruushka ayuu ka socdaa barnaamijkii baafinta ayaanan hadda idinku soo dhaweynaya shacbiga oo xurmeeya
intay dadka ka xushaan kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii waayaha nolosha iyo toddobaadkan waxaan ahay cabdilaahi jaamac barnaamijka qodobka toddobaadkan aanu ku eegaynaa waa shaqala'aanta haysata dhallinyarada soomaalida sida ay caddaysay daraasad ay soo saareen ururka shaqaalaha caalamiga ah ee adduunka ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa waxay ku qiyaasaysaa in boqolkiiba 30 dhallinyarada soomaalida ay shaqo haystaan taasi oo ka dhigaysa meelaha ugu xun ee adduunka dhallinyaradu ay shaqo la'aan tahay tani waxay keenaysaa in la isweydiiyo qaabkii shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaalida meel kasta ay joogaan barnaamijkan aan ku eegayna haddaba shaqala'aanta haysata dhallinyarada waxaa ka qaybgelaya marti kala joogta magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho magaalada hargeysa martida ka qaybgelaysaa waxay kala yihiin shaymo jaamac yuusuf iyo maxamed cabdiraxmaan jaamac waxayna ka mid yihiin dhallinyaradii jaamacadaha ka baxay sannadkan iyo kii ka horreeyey labaduba shaqo ma hayaan dhinaca magaalada muqdisho waxaayana barnaamijka kaga qaybgelaya khadar cabdi faarax iyo cabdilaahi cabdi xuseen aan ku horreeya dhegaystayaal martida hargeysa nala joogta waxaan weydiiyey ma shaqala'aan baa jirta sida la sheego mise sida dadka qaar ku doodayaan dhallinyarada ayaan diyaar u ahayn shaqooyinka qaar inay qabtaan waxaa jawaabta ku horraynaya maxamed cabdiraxmaan jaamac shaqala'aantu way jirtaa labana aanu kala qaadno shaqala'aan dhallinyarta ay aaminsan yihiin oo ah in xafiis cad iyo dowladda bosishan bannaan oo kursi inta buugga iyo qalinka iyo wax diyaara uu helo taas suuqa fuliyo deedna shaqooyinka kaloo dhan iska ignoor garay ama iska diiday oo isagoo isku abuuray taas mid kale ayaa jirta iyaduna dhinaca kale ah oo iyadana aan soo baran xirfad lagu shaqayn karo oo dabadeedna intuu tiiri un maskaxda kusoo shubtay suuqii soo galay aan garanaynba experience lahayn qaabka xitaa xafiis hadii la dhexgeeyay maba garanaysa soo shaqaynaya xitaa oo indhuhu taagaya marka taa laftirkeeduna iyadana way jirtaa inta badan iyaga waxaa jirta iyadana gaab kale dowladda xaggeeda ahoan shaqo abuuranayo sameyn dhallinyartii amaba ayna kaantaroolinba dee sida suuqa ardaydu markay soo geliyaan oo kale suuqii iyo isku beegaan iyo ardayga wixii soo barta oo kale intaa waxaan sheegay maxaa ku dari lahayd yaase dhallinyaradu ay ka sugaysaa shaqo abuur run ahaantii maxamed si fiican buu u sheegay waana xaqiiqda jirta amba waaqaca doolka nimika jirta marka mushkiladda ugu weyn ee dhallinyarada haysta horta waxa weeyaan waa shaqa la'aan shaqa la'aantaas sinada iminka ma quriyata ma ahayna sanado badanoo horena way soo jirtay mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahayna waa hadba cidda maxay ahayd toolay maamulka haysa ambaba de madaxweynaha dalka oo kale aan odhan karnaa kuwa soo socdaiyo ka iminka ahba ha noqotee hase yeeshee mushkiladda ugu weyn ee dhallinyaradan haysan jirta waxa weeyaan iminka markasaa loo qalin jibinaya meesha fadhiyaan oo kale madaxdii kasoo qaybgalaysaa waxay kugu sii encouragement garanaysaa inaad shaqo ka sugin oo kale waayo halka waxay ka odhanayaan ardaydaani amba ardaydan qalin jibinaysaa maanta oo kale yaanay maxay tolay shaqo kale oo meelaha ka raaraadin iyagu xirfada samaystaan xirfadan la samaysanayaana marka hore waa inay noqotaa dee marka hore jaamacada iyo iskuullada loo sameeyo xirfad farsamo kale haddii lagu dhigi lahaa amba ardayga la bari lahayo kale dee dhimay haatan qofka isagiiba iscanaanan lahaayo hawlo kala samaysan lahaa iminka secretary marka la dhiganayo waxaa la sheegaya maanta oo dhan magnesium potassium saas iyo curiyaal badan loo sheegaya haddana ma quriyaato practical kumanan arag maantana hadda xitaa aan gacanta ku hayan baan helo ma garanayo noocaytide taasi mushkiladda ugu weyn oo haysataa dhallinyaraduna waxa weeyaan practical la'aan bay low ka tahay marka jamhuuriyadda welina somaliland especially la eegayo maanta oo dhan waxbaan dhiganaynaa haddii secretary tahay haddii dugsi wado tahay haddii jaamacad tahayba waa la dhiganaya wax baa la akhriyaya samuurada wax lagu qoraya waa la sharaxaya ardayga waxaa laga yaaba inaanu hal practical aan la tusin maxmed haddaan kugu soo noqdo ma jiraanba tallaabooyin idiin muuqda intii aad joogteen aad wax baranayseen ilaa iminka oo cid uu qaaday shaqooyinkaasaa la abuuray oo laga shaqaynaya ama shirkada abuurtay ama dawladdu abuurtay fursadahaasi midin muuqda horta shaqala'aanta adduunka ka jirta waxaa la dhahaa 101 milyan dadka shaqala'aanta somaliland special marka laga eegana waxaa la dhahaa boqolkiiba 57.6% ayaa shaqala'aana ayaa la tilmaamaa xadiga shaqala'aanada intaa la eg oo boqolkiiba 55 marka macnaheedu shaqeeyo weeyaan xagga kale xitaa boolisiga xisbiyada hadda aragtaa madaxweynayaasha markay olole gelayaan ma jirto xitaa rajo odhanaysa intaasan cid shaqaysiinaya laakiin haddana marka si loo eego waxaa jirta to kaloo ah dhallinyarta intaa shaqala'aanta ah in yar bay shaqaysiiyeen oo ah dee ama lagu geeyo graduation lagu geeyo laakiin waxba ka tarta shaqalaantii wasaaradaha iyo dawladda oo shaqeeya suuqi ee ka saartay waxbaad ku dari karaysaa shayma arrinta laftigeedu hadday ku muuqato ama barnaamijyada la wado cid niyadda ku haysta oo ka fikiraysa intaasoo kun oo shaqo ayaa la abuuraya weli ma maqashay horta runtii maan maqal xataa haddii ay odhan lahaayeen waa lagu tusaale qaadan lahaa maalin xitaa haddii la samayn lahaa oo la odhan lahaa taas tallaabooyinkaasaanu qaadnay ee hanagu daydaan dhallinyaradaasi waa lagu dayan lahaa run ahaantii dhinaca kale marka laga eego waxaa la leeyahay dhallinyaradu laftigooda waxbay soo bartaan jaamacaday ka soo baxaan dugsi sare saas ay iminka sheegay inay soo bartaan laakiin sideen markii hore sheegnay shaqo unba u calaamadsan shaqooyin kale oo badan oo jira
oo laga shaqayn karo oo uu qofku moralkiisa ku dhisi karo oo wax ka soo saari karo dakhli ka soo saari karo way badan yihiin waddanka way ka buuxaan laakiin dhalinyarada shaqadaas inay qabtaan doonayn ama xirfadeeda lahayn taa maxaynu kuga jawaabaynaa shayma ها وارنتا تاسو kale walahi arday qof saroos ku haysanayaayo arday markuu ka soo baxo jaamacadka soo qalin jabiyo kale inuu shaqo ka sii sareysto daydayo mooyaane horta taana inaan ugu soo noqonin bay la tahay oo tu ka sareyso raadinayo laakiin maxamed way jiraan soo dhalinyaro ka timaado Mareykanka oo darmuuskooda xambaarto shaah ku dhixibiyay magaalada jaamacadana ka soo baxay way jiraan dad shaaha inta xambaartaan shubo maqaxida wareegta loo yaqaanaaba way jirtaa suuqa halkan soo shaqo doonta Mareykanka yimid laakiin dadkeenan kale Soomaaliyeed ba heer guraaban han jirnay marka dhaqankiiba saaman nuga shaqo baa ku jira anoo jaamacad ka soo baxay waardiye noqonaya anoo jaamacad ka soo baxay baan suulixaadaya gaadhi masaxaya qab baa ku jira marka qabkiiba wali Soomaalidii saameyn ku sameeyay shayma jaamacadaha laftigooda wax lagu canaananayaa dhalinyarada iyo carruurtu ma barayaan xirfad gacanta ah kulligood waxay soo barayaan waxa aynu ka sheekaynay theory-ga ah ee maanta waxa qof kala socda aanu jirin jaamacadaha arrintaasi wax lagu canaanan kara ma yihiin harnaanta waa lagu canaanan karaa haddii jaamacadda haddii secretary haddii dugsi hoose dhexe primary ay tahayba waayo waxbarashadu dawladda saameyn badan bay isku wada leedahay oo laga yaabaa haddii imika dugsiga primary-ga ardayga markuu yahay xirfado kale soo bari lahaa inuu saa kusii socon lahaa haddii dugsi sare kusoo geli lahaa jaamacadda kasoo bixi lahaa isagoo experience badan wata inuu kasoo bixi lahaa laga yaabaa markii uu qalin jibiyana inaanay saameyn badanba kusii yeelan isagoo xirfadiisii uu lahaa muddadaas dhan soo baranayay oo ku shaqo galo aad bay u mahadsan yihiin maxamed iyo shayma waxaa inagu soo aadan aragtida dhalinyaro joogta xamar oo iyana qodobkaasi ka hadlaysa balse marka hore aynu dhinaca Facebook iyo dhageystayaasha barnaamijka halkaasi kala socdo eegno waatan Safiya Cali Yusuf oo inoo soo dhex martay xasan fanax oo jooga magaalada Gaalkacyo oo aragtidiisa ka dhiibtay qodobkan ayaa waxa uu yiri runtii shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta geeyiga Soomaalidu ay degto waxa uu sababa inta badan musuqmaasuq iyo qabyaalad waayo ayuu yiri iyada oo la helayo qof shaqada qaban kara oo aqoon u leh ayaa waxa loo qaataa qof qabiil ahaan lagu qaato oo aan shaqada shahaado iyo khibratoona u lahayn wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhagaysan kartaa laanta afka Soomaaliga ee BBC ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com haddii dhegaystayaal aan ku sii soconno qodobkii la xidhiidhay dhalinyarada iyo shaqo la'aanta aan marmarkana eegno dhinaca magaalada Muqdisho oo ay joogaan Khadar Cabdi Faarax iyo Cabdilaahi Cabdi Xuseen oo wariyahayaga Xasan Istiila halkaasi kula kulmay ugu horeyn waxay ka hadlayaan bal arrimaha shaqo la'aanta iyo barnaamijkan qaybtii ay ka dhageysteen ee dhalinyaradii Hargeysa ka hadlaysay waxaa ku horeynaya hadalka Khadar Cabdi Faarax waan dhageysanay fikirka dhalinyarada reer Hargeysa inoo soo gudbiyeen boqolkiiba boqol aniga fikirkaas waa la qabaa wax shaqo abuur ah wadanka ka socda ma lahan haddii noqoto xagga dawladda iyo haddii noqoto xagga dadka kale ee ganacsatada ama hay'adaha samafalka isla su'aashaas rabaa inaan ku weydiiyo haddii aan aragtideeda ka dhibto dhalinyarada ku sugan magaalada Hargeysana waan dhageysanay aragtidooda kaga aadan shaqo abuurka in ay aad ugu jartahay deegaanada ay ku sugan yihiin haddii aan ka hadalno caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho aan ku noolnahay way jirtaa shaqo abuur inkastoo aad aysan u badnayn haddana markaan eegno shaqo abuurka ka soconaya caasimadda haddii dhankan eegno kambaniyada sida gaarka loo leeyahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya tusaale haddaan soo qaato ra'iisul wasaaraha xukuumadda wuxuu ballan qaaday in xafiisyada wasaaradaha ku yaala caasimadda ay ka shaqeynayaan in ku dhow kun dhalinyaro ah oo u ballan qaaday oo ku nool caasimadda gaar ahaan gobolkan Banaadir aan ku noolnahay gudoomiyaha gobolka Banaadir arinka uu daafray oo dhalinyaro fara badan baa su'aalo ka weydiisay degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ka soconaya iminka shaqo abuurkaas oo dhalinyaradu ay CV-yadooda ay geysanayaan stationada ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho aan ahaanteeda waxaan qabaa aragtida ah inay jirto shaqo abuur laakiin aysan badnayn oo loo baahan yahay in aad loo badiyo si loo helo dhalinyarada ay u helaan shaqo abuur fara badan maadaama sanad waliba in ka badan 5,000 oo arday ay ka soo qalin jabinayaan jaamacadaha dalka ku yaala ay u baahan yihiin fursado shaqo waxa soo hadal qaaday qorshaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay ku shaqaaleysiinayaan kun dhalinyaro ah oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir misleedahay kunkaas dhalinyarada waxay kaafin kartaa ama meesha ay ka saari kartaa shaqo la'aanta dhalinyarada ku nool Muqdisho haysta inkastoo Stiilo aysan ku nooleen Muqdisho kun dhalinyaro ah in ka badan ay ku nool yihiin oo shaqo la'aan ay haysato ma kaafin karto dhalinyarada hadda ku nool caasimadda oo kale markaad eegto waxay u badan yihiin dhalinyaro wata badge oo heer jaamacadeed ka soo qalin jabiyay kuwa wata dugsi sare kuwa aan wax baran baa jiro oo shaqo u baahan oo hadii ahaan lahayd xirfado kale in la baro u baahan qadar waad maqlaysaa oo
saaxiibka wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo weliba gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kun dhalinyaro ah oo muqdisho ku nool u ballan qaaday in shaqo loo abuuri doono inkastoo ra-iisul wasaaraha uu sheegay guud ahaan gobolada wadanka Soomaaliya in la gaarsiin doono taasoo ma ahan bilow wanaagsan oo shaqo abuurka ku saabsan walaalkii fikirkiisa waa fikir wanaagsan baaqaas uu ra-iisul wasaaraha uu ku baaqay in kun dhalinyaro ah gobolka banaadir laga shaqaaleynayo oo qoristiisana ay bilaabatay waa mid jirtay ahayd laakiin waxaan filayaa in arintaasi aysan wada saameyn ka wada faa'iideysan ummadda Soomaaliyeed dhalinyaradeeda sababtay tahay mas'uuliyiinta kala gedisan cid kasta afkeeda ku hadasha haddii tahay xagga dawladda haddii tahay xagga hay'adaha haddii tahay xagga shirkadaha gaarka loo leeyahay waxaa laga shaqaaleeyaa cid walba oo mas'uulka cidda ayada ku tirsan kaliya ka faa'iideysato bandhigaas la soo bandhig arrinkaasaan kaga jawaabayaa taas walaalkay waayahay Cabdullaahi Sanay Cabdullaahi qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanadka 2017 ilaa sanadka 2019 waxaa ku jira in dhalinyarada shaqo abuur ballaaran loo sameeyo ma dareemaysaan in qorshahaasi uu saameyn idinku yeeshay oo shaqo la'aantii ay dhintay stiil horta aad u mahadsan tahay haddii aan eegno dhanka iyo 2017 ilaa 2019 fursado shaqo ay dowladda ay abuurayso waxaan is dhihi karaa boqolkiiba boqol way kaafi kartaa dhalinyarada annaga waxaan naga dhacsan wax ah looma dhamo iyo sheekooyin la mid ah haddii maanta la yiraahdo kun dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo la siinayaa sanadan 2017 aan ku guda jirno 2018 kun kale ay hesho 2019 in ka badan 2003 ay helaan shaqo waxaan is dhihi karaa caasimada dhalinyarada ku nool boqolkiiba boqol inay noqon karaan kuwa shaqeeya fursadahaasi shaqo la soo bandhigayaan ka faa'iideysta xagee is leedahay dowladda xoog ha saarto si ugu yaraan dhalinyarada shaqo lagu abuuro dowladda meesha ugu muhiimsan oo hadda loo baahan yahay in diiradda saarto waxaan qabaa inay tahay fursadda farsamada oo kale dunida markaan eegno dalka China oo kale wuxuu ku caanbaxay fursadda farsamada oo ay ku dhiirgeliyeen dhalinyarada hadba markay dugsiga sare ka qalin jabiyaan oo kale ama jaamacadaha ay ka qalin jabiyaan wax soo saar fara badan ay aad u leeyihiin haddii hadda Soomaaliya oo kale ama caasimada oo kale laga bilaabo fursado lagu dhiirgelinayo dadka aan waxaas dhigi karaa dowladda haddii arrinka ay sameyso inay abuurmi karaan fursado shaqo wax soo saarka dalka ama gudahana uu aad u tayo u lahaan doono xasan istiila iyo martidaasi la joogtay aad bay u mahadsan yihiin dhinaca Facebook-in mar kale eegayna Safiya Cali Yusuf watan mar kale iyadoo inoo haysta dhageysta kale Adnaan Maxamed Axmed oo jooga magaalada Boosaaso isna aragtidiisa ka dhiibtay qodobkan ayaa waxa uu yiri runtii wax la yiraahdo shaqo la'aan maba jirto ayaan aaminsanahay waxa magaalo walba laga helayaa xirfado badan oo ka faa'iideysi u baahan balse dhalinyarteenu ay iska weynaysiiyaan waxaan leeyahay ayuu yiri dhalinyarada shaqa sharaf leh shaxaad baa ceeba barnaamijkan waxaa soo diyaariyay BBC Media Action intii nala socotay barnaamijkan waayaha nolosha waxaa qayb ka ah maansooyin xoojinaya isla xisaabtanka maansada toddobaadkan aan idiin hayaa waa maansa hal ku dhigeedu yahay xisaabtan waxaa hal abuuray abwaanka Axmed Cismaan Batuun qaybtii aan maanta idinku talagalnay nala dhageysta xasbaa qodax lagu hubaa xareed weeyaan samuhu taariikhduna waa xasuus shaqana xirfad baa hagto xigmadi waa erey gobeed xuluushuna maaha daaq xaaraan inaad biirsatana xabkaysaa dhaanta oo adduunyadu waa xajiin haddaan xarafraaca iyo tixdani xaajaday wadiyo xogteeda ku soo durkana qof gaara inaan xagtiyo xumaan iyo weerar ba'an xer gaara umaan unkine adoon xulafaysi bidin tilmaan iyo waa xasilin danaha guud xoojisee fahankuyuu kaa xumaan shacbiga ku xurmeeye ee intay dadka kaa xushaan kuu dhiibta xafiis camiran haddaad xagaldaacisiya inaad u xarriiqday guul si ay u xaqiijiyaan waxay xaq u leeyihiin inay ku xisaabiyaan halbeegga xaqiiqadiyo xogtuna waa lama huraan adduunyada waa u xeer xushmiya waa sharaf cuddoon xal iyo waa kala caddayn ogow tuhunkay xidhaa kalsoonay xoojisaa waxay xaradhaa samaha guul bay ku xarriiqaysaa abwaanku aad buu mahadsan yahay toddobaadka dambe ha u dameelaanina maansadan oo halkaasi inooga sii socota barnaamijkani ciddii u dhaafay iyo intiina jecel in ay aragti nala wadaagto waxa ay dib uga dhegaysan karayaan aragtidana ku qori karayaan bartaan facebooka ku leenahay BBC Media Action Soomaali qodobkaannu jecelnahay toddobaadkan inaad doodiisa nagala qayb gashaanna waa tahriibka iyo wax laga qaban karo toddobaadkan barnaamijkeennii waayaha noloshu dhegaystayaal intaasi haynoo joogo toddobaadka dambe barnaamijka lamid intaynu mar kale hawada isuguman doonno waa cabdilaahi jaamaciye safiya cali yusuf oo idinku dhaafi doona sidaa